aqoon-yahanka aynu rabno inagu waxaan leenahay waa inuu ugu yaraan laba hal haystaa waa inuu leeyahay kayd aqooneed qaabkuu doonaha ku soo helo kayd aqooneed waa inuu qofkani sidaa ka labaadna waxaanu leenahay waa inuu xis naqdiya leeyahay critical waa inaanu weel lagu shubay wax ahayne wax naqdin kara waa inuu yahay haddii aqoon-yahanku uu ahaan lahaa weel wax lagu shubay haan la buuxiyey dee cd-yada iyo dvd-yada aqoon-yahan noqon lahaa soo maaha dii laga buuxiyo waxa kale ama combyuutarka marka waxa lagu guro aqoon-yahan buu noqon lahaa aqoon-yahankaan rabnaahe bini aadamka ahi waa inuu noqdaa maxay qof kayd aqoomeed leh xis naqdiyaana leh wax naqdin kara wax duri kara waxaanuu sito af soomaaliga maxaynu odhan karnaa wax hufi kara dheh hufidda sooma taqaaniin waxaan la cunay ee baalka leh dhaqankii soomaaliga marka la tumo maxaa la samayn jiray si loo kala saaro buushaha iyo lubbi shayga midhihiisii rasmiga ee la rabay inta la tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna masafta lagu shubaa dabeetana waa la hufaa waa la haadiyaa aqoon-yahanku markaa waa inuu noqdaa qof kayd cilmiyeed leh mar labaadna wax xufi kara haan la buuxiyey aan ahayne qof wax xufi kara oo wax naqdin kara oo waxaan waxasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa walidaalik aqoon-yahanku kaydka cilmiyada aan ka rabnaa kow markaan inagu dad muslimiina nahay kow waa inuu garanayaa akbar xaqiiqa iyo waxa u waajibay xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu daliil badan waa ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo jiritaankiisa fi shariica qofka taa garan waaya aqoon-yahan qur-aanku uma rumaysna inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma inamaa yatadakaru ulu lalbaab ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclam kii garanaya wixii nebi maxamedow kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuunu xaq yahay kaman huwa acma ka indhaala miyuu la mid yahay indhuhu waa wasaa'ishii ugu fiicnaaye maxay cilmiga lagu baranayay cilmi daaya wuxuu laayahay wasiiladii lagu gaari lahaa buu qur-aanku saanu tilmaamaya kaman huwa acma inamaa yatadakkar ulul albaab idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxaan leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoon-yahan noqon maayo waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa saasi daraaddeed aqoon-yahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyeed xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan ama taa kowniga ee naajaralka ah ilaahay sameeyey ama taa waxyiga uu soo dejiyey xambaarsan xis naqdiya ana leh critical wax naqdin kara wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin wax hubin kara wax xufi kara wax haadin kara ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoon-yahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato oo aanad nolosha dowr ku lahayn qiimo ma leh waa ka ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث سيدي أي بولم ديبال ليري أي جوحة اسكمده هداد إيريدو يهداد سكديسو أي جو هراريو دا لبا دبا صحيح كما هراريو دا متغني عرب كمر كل الله ديها يدا يعني حيوان ككلا عادة وحلو يقانا markay kulayl dareemaan ama leeriya ama waxa lamada haraariyoodaan laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan aygu isagu labada jeerba maxaa loogu mathalay waxa weeyaan aqoontu daweyna isbedel nololeed keenta aqoontu waa inay suluuga wax ka bedeshaa waa inay dhaqanka wax ka bedeshaa haday dhaqanka wax ka bedeli weydo aqoontii la ictiraafiyay maaha aqoon qiimo samaynaysa maaha وين نقطة أقون أديك الرقم كا يبلشد أدلنا نوشين رقم كيد بوح كبدل كرا هذا با وحلنا أقون يهمك أندونينا كمسلمهان كأمة الصومالية وين نقطة قف دين كي سجرنا إياه أقون تأذنه وما تسكوه جامية كلنا وحكا جرنا إياه بلشدي سنة هاجي كرا مركز وهو محي أقويهم قوادتك السماية العقل العام للأمة أركتيد جود بلشدو أي رميسان تهاي وين نقضى أقويهم كقفك كوينا يا سمينا يا وين نقضى أقويهم كقفك إلالية ومدى أيدنتتي جيده ومد والبا وحيلا ده هاي أيدنتتي وحلقو قرطه وحيكسو عن تهاي وين بعد السوء ده إلالين كريه وحلينا قويهن كانوا باهن وينو نقضاه قف هاجي كرب الشدة إلى الخير سماها كو هاجي كرا وينو نقضاه هذا با كي يسبدل ككدعة أمد إنو يسبدل كدعة وحيد هذا وحسب بكو إن له لو cultural revolution وإنه مدى دقن كده لبدله دقن كله بدله وامحي وين له فاه ودقن كاسي وحي سحن وين لطورة وحي سصنا وين للصغاه وحي كلفي عنا وين الغدرة سيدا وجد ومدى يسبدل كمي ماضو هدان وحي الرميسيين وحلقة بدلين قاب كي ودق ميانا وحلقة بدلين إلى القرآن كم حكوت المامية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم dadku waxa ay ku sugan yihiin ma biqawm balayeen Allah la yughayir ma biqawm ma bi umma dad waxay ku sugan yihiin isma bedelo ilaahay ma bedelo hatta yughayyiru ilaahay badalan maxay ma bil anfus garaadka iyo aqliga iyo dhaqanka iyo suluuga inay bedelaan mooyane waxba isma bedelaan sida ogeed إلهي مركو الرسول صادري الرسول شو أقويها كعدة هجامسة وهي absolute value أقونا بايه السودان توس أي ربي قادو ولا كل من أن وصيله تجارب بني آدم بصامرين أي ربي قاد توس وقت مبيح بارسين الرسول شو حي السماياني أنبياء دوام حي ما بالأنفس بيبدلان دتك سيدو فكريو iyo waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqankiisa ay bedelaan kaas marka la bedelo cultural revolution ku dhaco ayaa materialka bini'aadamkana wax iska bedelaan marka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam kitaab science masidin looma soo dhiibin teknolojiyada iyo baabka waxa loo soo dhiibay wax lagu bedelo bini'aadamka uquushiisa iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa wax bedeli kara تامركي لبدلي waxay taasi tilmaamtay waxaan xaq ahayn inaan dadku rumaysan wax kasta inaanu iska rumaysanin aqoontooda wasaayisha ku adeegsanayaan imma al-hiss aw al-aql inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosnayn
waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafo dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan insaanku inuu wax bartaa inay fiican tahay in la rumaysto in cilmigu qadar inuu yeesho waxani waa thaqaafadii culture-kii bini aadamkoo la bedelayo waa muctaqadkii bini aadamkoo la bedelayo wuxuu rumaysnaa qofka bini aadamka ahi waa qaabku u dhaqmayo la bedelayo taasaa waxay dhashay qarni kadib inay dunida aqoontii taallo dhan intay ururiyaan ay hufaan weliba oo waxaanu cuntamayn intay ka tuuraan ay ka dhigaan wax aadanaha wax tara